ciyaartan oo lagu maamuusay bisha barakeysan Ramadaan isla marhaantaana qayb ay ka ahayd isdhexgalka bulshada ay soo qaban qaabiyeen maamulka degmada Yaaqshiid ayna u joogeen mas'uuliyiin ka tirsan xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayaa galabta ka dhacday garoonka Kalsan ee degmadaasi Yaaqshiid waxaana tartankaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin oo kamid ahaa gudoomiyaha degmada Yaaqshiid iyo mas'uul ka tirsan xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo lagu magacaabo Cali Shiino iyo dadweynaha aad u fara badan oo ka soo qayb galay daawashada ciyaarta adag ee u dhaxeysay labada kooxood ee ka dhisan degmadaasi Yaaqshiid tartankan oo ay ka qayb galeen ku dhawaad 20 kooxood isla markaana ah mid isla reeb ah oo ay galabta kulinkii ugu dambeeyay ay isku soo hareen labada kooxood ee ka dhisan degmadaasi Yaaqshiid ayaa qaybtii hore ciyaarta lagu kala nastay 2-1 qaybtii labaad markii la soo laabtay koox walba waxay markaas isku dayday inay markaas guul ka gaarto kulankan isla markaana koobka dhaxyaalo ay la hooyato balse waqtiga ayaa waxa uu ka dhigay in ciyaarta ay ku soo gabagabowdo 4-4 iyadoo taageerayaashii labada kooxoodna ay u kala sacabtumayeen labada kooxood iyadoo labada kooxoodna ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan sidoo sharcigu qabana labada kooxood ayaa waxay ku kala baxeen gool kulaad ama rigoorayaal ayna guusha ku raacday kooxdii koobka markaas la hooyatay waxaana goobta munaasabada gabagabada ka hadlay mas'uul ka tirsan xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo lagu magacaabo Cali Shiino una ugu hambalyeeyay dhalinyarada iyo maamulka degmada Yaaqshiid sida wanaagsan ay u soo qaban qaabiyeen tartankan loona baahan yahay tartanada caankan oo kala ah in sidaan loo badiyo waxaan aad ugu faraxsanahay haddana xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta degmada Yaaqshiid tartankan ay abaabuleen oo Ramadaanka oo galabtan ciyaartiisa finalka go'do ku nahay isdhexgalka bulshada iyo degmada Yaaqshiid aad ayaan u hambalyeynaa labada kooxood ee ciyaarta finalka timiday ugu dambeyntii waxaa goobta munaasabada lagu guddoonsiinayay ciyaaryahanada ka qayb gashay ciyaarta kama dambaysta ka hadlay gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Muxdiin Xasan Juris oo markaasi ugu hambalyeeyay bahda isboortiga degmada Yaaqshiid sida kartida leh ay markaasi u soo awaawileen tartankan ciyaartada labada kooxood bisha Ramadaan oo dhan ku dhuleysan dhammaantood labada kooxood ee soo gaaray finalka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كتر معنا في رمضان إلا ما تنتهوا بالله يقصد دماغ يقصد إلى تطلع المجال نسمع رمضان فهذا يصب هنا المنطقة ورمضان الرمي والطول. أنا من فرنسا أنا كان أسباب تعالى أنا دماغ نسا معايا بلغنا كان سكرتي marka soo diyaariyay degmada ay u saftaan ayay u saftaan ana taxaana inay labada kooxood ee markaasi ku tartamaysa ciyaarta finalka ayaa waxay gacan qaadeen mas'uuliyiintii ka qayb gashay gabagabada ciyaartan ayadoo kooxdii koobka ku guuleysatay sidaas lagu guddoonsiiyay koobkii munaasabada labada kooxood ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan tan waxay qayb ka tahay arrimaha la doonayo in markaasi la isku dhexgeliyo dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeed Cabdisaaq Aadan James telefishinka qaranka